magaalada Cilafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag daawadayaal sida darkaysan waxa iminka ka bilaabmi doona mudaharaad salmiya oo lagaga soo horjeedo xariga boqor Cismaan aw Maxamuud Maxamed oo lagu xiray magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo ay xidhay xukuumadda Soomaaliland waayeelka cuqaasha haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan ayaa isugu soo baxay magaalada Cilafweyn qaybo kamid ah dadka mudaharaadka sameynaya aad sida tooska u daawanaysaan hadeer toole ayaanu la hadli doonaa bal adigoo magacaaga ku bilaabay saaka halkan maxaad ugu soo baxda waxaan ugu soo baxay xariga subaashan ciidarada loo soo maray anigoo caaqilkii baash wadayaasha qaybo kamid ah la taaganay mudaharaadkuna uu bilaabmaya xaaji dayur waxaad ka warantaa bal mudaharaadkan hadeer bilaabmaya ujeedadiisu maxay tahay dadkii oo si toos ah Facebook iminka lagaga daawanayo waxaanu ka xunnahay boqorka la xiray boqorku isagoo ka hadlaya dadka nabadayntiisa iyo nabadgelyada dalka satal gareynaya wixii maartay dhibaato ah uu leeyahay hal dejo oo dawladda iyo dadku hal dejo xariga adigu maxaad ku tilmaami kartaa xariga waxa ka dooranaya inuu yahay xarig qalad ah oo lagu kacay oo aan munaasib ahayn oo xunun yahay lama xirxirin ragii la socday ragii la socdayna lama xirxirin ragii baaqad u diraysa si toos ah lagu daawanayo baaqaaga sheeg waxaan leenahay madaxweynaha waxaan leenahay xorriyadiisa u sii daa boqorka xorriyadiisa u sii daa waayo wax dhibaato meesha ka dhacay ma jiraan xorriyadiisa u sii daa waan leenahay wali way socotaa aqoonyahankii iyo dhalinyaradii magaalada cidi kama maqna oo la isu soo baxay waxaana muujin kartaa sida bulshadu uga soo horjeedo xariga boqorka geeska Afrika boqor Cismaan aw Maxamuud Maxamed engineer Naasir bal waxaad ka warantaa maxaad halkan u timaad adigoo soo koobaya si toos ah ay bulshada Facebook imika ku daawanayaan oo kumanaan sii dhaafaya waad maasantahay mudal Maxamuud halkan waxaan u imanay inaanu shucuurtada ku muujino inaan ka soo horjeedno xariga la kaca Cismaan aw Maxamuud Buurmadow maxaad ku tilmaami kartaa xariga boqorka waxaan ku tilmaamaynaa mid sharci ah waayo halkan loo soo diraa marka nabad la xidhay waa loo diraa meel marka uu nabad ka hadlana waa la xidhaya marka xagga ka xidmilaada salaadu kuwan gacan libaax labada bilood fadhiyay maxaa loo xidhay dawladdu waxay hadli waday leedahay keena ajandihii dawladda reeru ka hadlayeen waxay hadli waayeen dawladda kaasina wuxuu ahaa mid kamid ah dadkii mudaharaadayay qaybo kamid ah haweenka ayaan ku sii siqi doonaa way farabadan yihiin dadka isugu soo baxay magaalada Cilafweyn dumarka magaalada oo ka qayb qaadanaya mudaharaadka aad sida tooska daawadayaal u daawanaysaan ee magaalada Cilafweyn waxaanu la taaganahay mid kamid ah hooyooyinka halkan saaka jooga bal magacaaga adigoo ku bilaabaya maxaa halkan ku keenay waxaanu dareensanahay in xariga boqor Cismaan ay saaka dadku isugu soo baxeen xariga adigu saad u aragtaa xariga waa ka xumahay anigu aad iyo aad baan uga xumahay ilaahayna maseexan iminkana waxaan u taaganahay haddaan si degdeg loo sii deyn hooyooyinka aad iyo aad uga xun una mudaharaadaya oo diidan baan haweenka ayaanu markan ka nimi aqoonyahankii iyo haweenkii magaalada cidi kama maqna qaybo kamid ah haweenka ayaanu iyagana aragtidooda bal weydiin doonaa xariga boqorka ku saabsan bal adigu magacaaga adigoo ku bilaabaya si toos ah hadeer Facebook lagaga daawanaya waxaad ka warantaa halkan maxaa ku keenay xariga boqorka saas oo aragtaa waxay keenay xariga boqor Cismaan Buurmadow boqorkii nabadda cadaalad waxay isticmaalaan xiray aad muddo dawladda Soomaaliland inay hadeerto doorahan dambe ay ku xaartay gelisay ixtiraamto hadalkooda ama muuqifkooda u rumayso qaar racagta saarto waanu ka xunay boqor Cismaan Buurmadow xarigiisa waxaanu ka codsaynaa mudana madaxweyne noo soo xorriyad soo saartay boqor Cismaan Buurmadow si degdeg kuma dambayso oo shuruud la'aan adiguna bal ka waran halkan saaka maxaa ku keenay halkan saaka keenay boqor Cismaan Buurmadow boqorkii nabadda ee degmada u dhashay oo dawladda dhalataaba isaga ku dhalato xarigna loo daddejo mid walbana uu doortay waxaan u sheegayaa Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweyne si shuruud la'aan u soo gaa oo xorriyadiisa ugu soo celi boqor Cismaan Buurmadow
kuwaasina daawadayaal waxay ahaayeen weli mudaharadayaashu may kala dareerin oo warbaahinta ay la hadlayaan magaalada gudaheeda ayayna ku mari doonaan socod lalug ah waa maxamuud cabdi barre oo idinkala soo hadlaya magaalada cilaf weyn ee galbeedka gobolka Sanaag oo uu dhawaan boqor Cismaan aw Maxamuud Maxamed deegaanadan nabadgelyo taam ah ka sii xidhay walow aan la garan karin bal waxyaabaha ama asbaabta ay ku keento xadhiga boqor Buurmadow nabadda uu sii xidhay iyo kala dejinta labadii beelood wixii dambe warar soo kordha iminka